halkan u soo joogsanay arrin na taabatay noo taabatay qadiyad ahaan oo ah TV awinan muwaadina oo ganacsadihii keensaday oo lagu rikibaya halkan oo la soo mariyay hay'adihii ku shaqada lahaa oo dhammaanba haysta qoraalkii sharciyada ee ku salaysnaa yiri waa la joojiyay kaaga noocaagan waa la xayiray waxaan u sheegaynaa madaxda sare ee qaranka intii aan ogeyn intii ogi way ku tala gashay waqtigeedayna qaadan doontaa ninkii aabihii la dilay badaxday wuxuu ragis guraye intii og waa ragis guraye laakiin madaxda sarena wada xukuntaan u sheegaynaa maantoon gaadhsiinaynaa shaarkayga shaar ka dheer baad soo iibsatay kabahayga kaba ka dhaadheer baad soo iibsatay aqalkaad dhisaysa aqalkayguu ka sarreeyaa hawshaasi way soo jiri jirto dadka madow way aad bay ugu soo badnaan jirtay laakiin naaw inay taagan tahay maanaan moodayn oo hawadu cidhiidhi ku gelinayaabaa la yidhi free market baana nahay ganacsi xora oo tartanaana lagu jiraa waar idinkaan waxba keenayn baa ayaan lahayn dadka oon ku karbaashaynay qolada naga soo hor jeedee waa mucaaradka Soomaaliland aan idhaahnaana waxay odhan jirtay biyaa idiin ogol waa laydin haystaa maxor baad ismoodaysiin iyay nagu lahaayeen waan beenin jiray madaxweyne kuwii baad noo rumaynaysaa kuwii ha noo rumaynin ha iskaayo raacinin xoolaha waqti waxaa jira ka maalin qaday iyaga 10 qaday reerku wuu guurayaa waa isku kaldara la yidhaaho kaldar baa la yidhaa maalin qura la wada cabaa waa marka reerku hayaamayo kaldar baan isugu nimidnay qoladii waliba aad loogu xamanayay dawladdan haanu ee ku faanayay ee dadka ka adkaa in badan suldaan abshir iyo qoladii aan madheere geynay buu ahaa ee dawladda raacan lahayn maanta baroortiisu dee maanta way iga ooysay anigana ka daaya naga qabo dadka sidaa le madaxweyne weliba waxaa la leeyahay xanta waa qoyska madaxweynaha la leeyahay weliba mudane madaxweyne qoyskaaga iyo Soomaaliland ba madaxweynaha u wada tahay sharciguna uu wada qabanayaa waxaanu kaa codsanaynaa bifadlag arrintaa haddaadan ogeynaa si degdega u soo farageliso wasiirka warqadda joojintaa qorayna waa wasiirka boosta iyo isgaadhsiinta Soomaaliland weeyaan waa niman xigtanahay oon ood wadaagnahay Soomaaliduna say isku dhashiyo say ijaarka ugu dhaxeeyay malaha col tahay dee anagu waayadan waar waxaan baabiinama lahayn oo sida u wada taalaha isku xigto ma garanayo dardaarankii horun buu hayay malaha kan waayadan ka sheekeynayna babu maqal madaxweynaha waxaan ku codsanaynaa arrintaas si fudud inuu tallaabo uga qaado inaka Caydaruus la yiraahdo TV-giisa weeyi uu ogyahay wasiirka boosu isaga shalay warqadda soo qoray oo fasaxay isagana cishadii dambe xiray oo yiri inaan madaxweynuhu dhalay iyaba soo dacwooday away de arrintaas hadday sidaa tahay madaxweyne de waxaan maqli jirnay ku yaroo Muusabix dhalay ba dadka xidhxidho Hargeysa wuxuu doono ku sameeyaa halkan dhow soo gaadho aqaladeedii hortooda la leeyahay ganacsigiinu ka furmi maayo ku kale u furnaanaya markay hawshu sidaa tahay magaca Soomaaliland la wada leeyahay in la sheego halkay taalaa ma jirtadii
isma qabanayso madaxweyne haddaad arrintaa wax ka qaban weydo cid walba wixii u dana iyay ka tashan waxaa kaloon ballan qaadaynaa inuuna midna shaqaynayn midna xidhnaanayn inuuna midna shaqeeyo midna uu xidhnaado wax dhacaya maaha madaxweyne fariintaa adaan kuu soo gudbinay cid madaxoo ka sarraysaa ma jirto dalka waxaannu kaa codsanaynaa oo ku leenahay madaxweyne arrintaas sida ugu dhaqsiya badan tallaabo ka qaad haddii wax beena laguu sheegayeyna runta ogow xaqiiqadu waa sidaa wasiirku inankii caydaruuse tiifiga lahaa inuu dhegaysto u diiday inamaa ku soo dacweeyey xaafadda halkaasa iyay sheekadu dhaafilaada ha kuu sheega dee wasiirku aad iyo aad baan u salaamaynaa haddii xataa la odhanayo dee ninku baalka intuu soo siistay un khasaarihiisu waa ku joogay waxay ahayd in hay-adaha dawladduna ay dhammaantood kolka horeba joojaan laakiin markii barnaamijkii la dhammeeyey ayaa la yidhi ninka iminka hadalka carabku u badan yahayna warqaddiisii u dambaysay oo bixiyey ayuu haddana yidhi waan kaala noqday waxaan leenahay taasi nama qabato cirka iyo dhulkaba waa laga ganacsadaa somalilan waa sida adduunyadu ay tahay ganacsi dhulka maraa jira ku samada maraa jira dee malaha waxaan isir madaxweyne intan awdalgeeda buursiga intan samada ku toosani malaha kuma liidin baa laleeyahaan idhi waayo kan samadaa khusaysa intan kani waa kiis xagga cirka iyuu maraabaa la yidhi annaguma naqaane madaxweyne waxaan kaa codsanaynaa oo iyadoo codsi naga ah shaqada ganacsigaas soo farigeli xorta ah waxay noqonaysaa sidii horeba loo sheegay ninna wuu shaqayni ninna shaqayn maayo ma fiicna annagu xafladdii baan khamiistii hore u diyaar ahayn annagoo hudheelkiisa ku sii soconna sow baa la yidhi wasiir baa soo hadlay oo wixiiba joojiyey waan qaadan weynay xaqiiqdii baa imika noo timid tvgaas kelmaddaasi oo ahayd waagii awcigaal madaxweynaha ahaa daahir yaalaale ku-xigeenka ahaa buu nin waxaa ka soo degay eraboodka hargeysa nin gaal ahaayoo lagu haya mashruuc ka samaynaya oo 200 oo inan oo gadabuursiiyey ay u shaqo tegayeen ogolaanshaha iyo ruqsaddana waxaa siisay dawladda somalilan iyo hay-adihii ay qusaysay halkii markuu tegayna waxaa la yidhi ruqsaddaasi ma soconaysee 24 saacadood gudahood ha kaga baxa magaalada markii la ogaaday inay intaasi shaqo ka helayso oo baawur halkaa yaallo tani tii bayna xasuusinaysaa oo tvgani hadduu tviyadii ka laandheeraaday dee isaaqa lacag kuma yare lacagta somalilan ba iyaga haysta ku ka sarreeyuna soo iibsadaan kannaha sii daayaan waxaan u sheegaynaa madaxweynaha iyo hay-adaha ay khusayso madaxweyne dee inaad xorriyaddiisa siiso tvga oo inankaasi ku soo tabcaday ee uu soo gashaday lacagta uu somalilanna u keenay somalilanna laguma kala sarreeya waa mid la wada leeyahay oqoonsi na way raadinaysaa markaa waxaan doonaynaa dee muraayadda in layska wada arko oo layska daawado haddayna sidaasi ahayn dee dadku way didayaanoo halka dadka kala joogaan bay tegayaan wasalaamu calaykum waxaan tacsiya halkan uga dirayaa dadkii shaqaaqada ku dhintay oo la yidhi weli lama aasin saakaan hargeysa ka yimid haddaan maanta la aasin weli lama aasin xalay laygu yidhi ayaan halkan tacsiya uga dirayaa in ilaahay u naxariisto dadka ehelada ee maaragtaa meydka ransanaya ee laga aasi waayey dhibta haysata dee ilaahay umbaa yaqaana arrinkaa in ilaahay fududeeyo oo waxa weeyaan wax dambena ilaahay inuu inagu soo celin iyagana ilaahay ugu naxariisto dadkoogiina ilaahay samir iyo iimaan uu ka siiyo intaasaa horta mawduucayga hore yahay inta kale waxa weeye arrinkaa anigu ma sii badinayo waayo cuqaashaa tidhi hadalka nuxurkiisii 2 wasaaradood ayuu waxaan hoos tagaaba ninkii u horreeyey raacay baan ahaa caydaruus waxaan u tagnay wasiirka warfaafinta ilaahay khayra siiyo waa gobgobi dhashay weeye waar maxaad suldaanka iigu keentay annagu reerkii garaadada lahaa
iyaan nahay maxaad suldaanka igu keento uu noo oggolaaday wax turxaanana xagga wasaaraddaasi ma yeelan kan kaleen xigtadan ee xaggan soke ma garanaysaa iyaa dee boostadii iyo isgaadhsiintii noqday waar kan baabay niga xigaan nidhi waanu nimid xitaaniya dhawal waanu tagno arrinkaasaan ugu tagnay waan sidaasaan ku sii daayey buu nagu yidhi wixii waa ka dhaqaaqiba waaye madaxweyne raggii haysan jiray waa raggaas halka halkaa jooga waxa Soomaalidu waxay tiraahdaa ulima aroorise oon baa arooriya raggii dawladdaad ku xuntahay oo wax tiraahdaa yoran jiray waa naga dees wadaag joogna saaka waa ilaahay mahadii waxa weeye kuwa horaa ka horeeyo halkaa yare badda nagaga toosan yamantaan ka soo qaadan jirnay shidaal yaroo booyadaha dooni jiray oo dadku iskaga ladnaa buskudkaan u doonan jirnay baashaasaan u doonan jirnay shidaalkaa la keeni jiray waxaa la yidhi ninku dee kolku maftaaxa sarahayo wuxuu doonaa way furan tahay waxaa la yidhi wax shidaalka lagu eego weligayaba shidaal xunnu kama soo dejin ilaa ninku markuu waxaan ku diidayo awoodna uu leeyahay wuxuu yidhaa ma waayo wax shidaalka lagu eego kala saaraan birbira dhignaa la yidhi meel kale shidaal kama soo degi karaa la yidhi beerkaa dhulka lagu wada hayaa wuxuu yidhi jaac faahiye risiqiinniyo kaayagii baad isku ridateeni allihii nafsiga riixi jiray nooma soo rogine rubacaan cirkaa saarabaa reedhi loo yahay rabbi wuxuu qadaray sidaasuuna noo rogrogataan waxa weeyaan saaka hadalka iyagu ogeysiin buu badan yahay war malaa ragga waaweynimo ogaanu hargeysa imiga waxaan u tegey madaxweynaha mar baan ku yidhi in badan baa saraw hadal laygu eedeeyey waxaan arko hoosuunbaan hadda kadib kugu odhan hargeysa markaan tego odayba ma arki kara madaxweynuhu baa laygu yidhi waa anigaan imiga ka soo noqday shirkanka jaraa'id dirqi ku soo gaadhay inaan dee saxaafadda kaa ogeysiinno ayay nagu kaliftay sidaasaan u hadlannaa madaxweyne nin reer birbiraadaa yidhi markii lagu dooranayey madaxweyneanu waxbaan ku dooranayaa horta dumarkiisa uu naga ceshan buu yidhi dee nin dumar ceshada carruurtana wuu ceshanni waa dhallinyar waxaa la sheegayaaye telefishinkaa inaad si degdega noogu furto waxa weeyaan gadabursiga waan canaanan jirnay wax haysta waxaan odhan jirnay xabad keliya telefishana waar barrayuun hawaday noo geliyaan odhan jirnay waxbay ilayn malaha ogaayeen telefishinka inaad degdeg noogu geliso oo aad nimankaa nooga qabato iyaan doonannaa saakacay iyo ceeb iyo hadalxumo midna nuuma soo joogsan waayaha iyaguun baan kuu sheegannaa inankaa kharashka ka baxay ayaa baac mushtari weyn oo kala geli lahaa xogogaal baanu ahay waxa weeyaan 600 invitation doraad ka khasaaray oo kaliya ayaa haddana waxa la yidhi waan kaala noqonnay ma qaadi karannee raggii ulgolaka dagaalami jiray madheeraygeeye waa raggaase saaka waan dhannahay madaxweyne la hadal carruurta asalaamu calaykum waraxmatullahi